waxaa maanta magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya banaanbax ku dhigay wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka. wariyaashan ayaa waxay dalbanayeen inuu xurriyadiisa dib u helo wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja, kaas oo kamid ah wariyaasha ka howlgala gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. in ka badan 45 cisho ayuu u xiran yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. wariyaasha maanta banaanbaxa ka dhigay gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ay ku dalbanayaan inuu xurriyadiisa dib u helo wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja. jawiga ayaana ahay sida tan. Abuuja waxaan codsanaynaa inuu cadaalad helo. qof kasta cadaalad uu xaq u leeyahay. Abuuja waa inuu cadaalad helaa. intaas kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay ururada saxafiyiinta ee ka jira gudaha magaalada muqdisho qaarkood iyo waliba saxafiyiinta. intuu xiran yahayna waa qaylinayna waa wadayna waxaan rabnaa in sharciga qof walba uu hoggaansamo sharcigana loo wada dhaxeeyo. Abuuja waa qof Soomaaliyeed waa wariye ka shaqeynaya sabab kale oo loo xiri kara ma jirto. waxaan aaminsanahay in shaqadiisa loo xiray. haddii aan shaqadiisa loo xirin sharciga ma la horkeeno wax la qariyo qurun baa ku jira ma aqbali karno sababta loo haysta sida darteed sidaan wariyaashii kaleba ugu qaylinay ayaan u sii wadi doonaa mana joojin doono cabashadeena ilaa inta laga soo deynayo. wuxuu ahaa nin madi aabiisa halkan jooga nin reer u shaqeynayo ahaa asagoo kaliya reerkii u shaqeynayay in asagii la lugooyo oo meel lagu xirto sabab lagu xirtana aan la sheegin waxay muujinaysaa xoog tooxsi inay tahay sharci darro. qof kasta oo ku lug lana waxaan cambaaraynaynaa haddaan nahay wariyaasha Soomaaliyeed sida halkan uga dhawaaqayeen in si degdeg ah oo shuruud la'aan loo sii daayo maadaama aan sharciga lagu soo xirin sharcina lagu haysan. 44 maalmood ayaa ka soo wareegatay xilliga uu xabsiga ku jiro waxaana taas ay muujinaysaa sida ay sharci darro u tahay iyo sida dastuurka dalka aysan dawladda Soomaaliyeed u ixtiraaminin. shaki weyn waxaa naga haya in dawladda madaxdeeda sare gaar ahaan dadka amniga qaabilsan arrintan ay ka warhayaan haddiise ay og yihiin waa ceeb waa dhabarjab waa dhibaato kale oo ka dhan ah xurriyadda hadalka iyo tan saxaafadda ee dalkan Soomaaliya. haddiise aysan madaxda ogeyn oo aysan ka warqabin waxaan dalbanaynaa si degdeg arrintan ay ku baaraan dadka ka dambeeyay cadaalad hor keenaan Maxamedna u ogolaadaan xukun cadaalad aynu helo. waxaan noo sheegay waliba hay'adda nabadsuudu noo sheegtay inaan wax dambiye lagu haysan markii la soo deynayay. waxaan ka mid ahaa wariyaashii ugu tagay godka Jilcu waxaa la sheegay inaan wax dambiye loo haysan haddana isagoo la sii daayay dib si sharci darra loo soo xidhay waana uu xidhan yahay ilaa hadda meel uu ku xidhan yahay ilaa hadda lama oga. waa dareemaysaan waa aabe madiya waa madi haddana waa aabe 3 carruur dhalay. si walba u xiran yahay iyo nooc walba oo loo xiraba waxaan dawladda federaalka ka codsanaynaa in dib xurriyadiisa loo siiyo haddii dambi lagu haystana la marsiiyo sifo sharci ah haddii kalena la soo daayo. waa runtii Abuuja ma lahan xildhibaan ma lahan qabiil annaga qabiil u ah annaga xildhibaano u ah waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka oo cod dheer uga codsanaya anigoo gabar ah runtii aadna ii damqayso Abuuja oo muddo dheer halkaas ku xiran cid u taagan aysan jirin oon annaga ka ahayn wariye ka ahaan inuusan haysanin cudurraa jira wax kastaa jira dawladda federaalka ah waxaan mar kale cod kale ku leeyahay. xaafadaada waad u soo laabanaysaa gurigaaga waad ku soo laabanaysaa qof muwaadin in lagu wado isla caawa waad soo laabanaysaa misna wax dembi aan lahayn haddana la xiro waliba uu xabsi ku jiro muddo markaa 45 habeen ah. waxaan codsanayaa cod dheeraan dawladda uga dalbanayaa wasaaradda warfaafinta guud ahaan dawladda oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka in wariye Abuuja cadaalad la siiyo. ugu dambeyn waxaa warbaahinta sidoo kale la hadlay ehelada wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja kuwaasi oo dawladda Soomaaliya ka dalbaday inay si degdeg ah ay u soo diyaan xabaday ku gameen lugna waa ka jabiyeen saldhigga shibisay ku xirteen habeenkii 8 saacan ka soo deynay subaxdina xad gudubka lagu sameeyay ayuu ka diyaariyay qoraal war ka diyaariyay Maxamed sidaas xilligaas waxay ka bilowday sida ay uga daba qaateen niisa shibis ilaa iyo hadda heerkan ku keenan waa cagajugleena jiro jirdila jiro lugay ka garaacnay innaha waa ka xireen meel qaas oo ay geysteen wax la qarihay male intaasoo dhanna waxa ka dambeeya niisa shibis waa is yaqaanaan waa is ogyihiin saadarteed waxaan dawladda ugu horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre xildhibaanada labada gole waxaan ka codsanayaa in aysan ku fiirinin shacbiga Soomaaliyeed qaas ahaan suxufiyiinta lagu tagrifalaayo lagu joorfalaayo lagu xadgudbaayo la dhibaateynayo oo haddana sidii eri carbeed camal meel la isaga xareysanayo xabsiga
ma ahan baqaar maahan oo shakhsiyaal uu furan yahay deeq macna diino jekay telefishinka caalamiga ah Saab TV magaalada Muqdisho